Hadal ka soo yeedhay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa saameyn weyn ku yeeshay gebi ahaan caalamka Islaamka. Haddaba, wiil ka mid ah Muslimiinta ku dhaqan waddanka Faransiiska, gaar ahaan meeshuu dilku ka dhacay, ayaa isla gudaha u galay kaniisadda gudaheeda, kaasoo 3 nin oo Kiristama ku jira kaniisadda qoorta ka gooyay. Wiilkan ayaa askarta isla gobolkaasi soo qabatay oo u taxaabay isla waqtigiiba saldhigga, kaasoo kadib mar la daweynayo oo cisbitaal ku jiray markii dhaawac ka soo gaadhay isla halkaas kaniisadda uu ku leynayay ragga. Dhakhtarka loola cararay isagoo dabiibina ku dhawaaqaya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haddaba, warbixin kooban ayaan iga haynaa saaxiibayaal. Waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like ugu dhiirigeliso si uu sii gaadho dad badan oo ka cadhooda diinta Islaamka, siina share garee muuqaalkan oo si uu sii gaadho gaalo badan oo ka naxa diinta Islaamka marka laga sheekeynayo. Haddaba, ku soo dhawaada warbixinteena oo fidsan. Ugu horreyn saaxiibayaal, ninkan Muslimka ah ayaa ahaa wiil isla waqti xaadirka ka soo jeeda wadamada bariga Aasiya. Haddaba, wiilkan oo ahaa Muslim buuxa ayaa u galay kaniisad lagu caabudayo ama lagu xusayo diinta Kiristaanka, kaasoo la galay midi. Kadib markii uu halkaas 3 nin ku diray, ayaa soo buux dhaafiyeen askarta isla gobolkaas. Gudoomiyaha gobolkaas oo lagu magacaabo Neil ayaa warbixin kooban ku sheegay markii TV-yadu ka hadlayeen isla waqti xaadirkaas, isagoo sheegay in dhexdhexaadin lagu sameyn doono Islaamka ku dhaqan isla gobolkaas, kaasoo labada dhinac sidii ammaan uga buuxi lahaa isla waqti xaadirka lagu sameyn doono insha Allah. Haddaba, dadka ku dhaqan gobolkaas ayaa laga baqayaa in uu ka dhex dhaco dagaal, kaas oo iyagu dadka Muslimiinta ee ku dhaqan isla halkaas ay ku weeraraan midiyo kaniisadaha, halka kale ee dadka Kiristaanka astaana laga baqayo in ay weeraraan masaajidada sida ay qarxiyaan. Haddaba, warbixintan halkaas ayaan ku soo gudbinaynaa saaxiibayaal. Ugu horreyn, haddii aad nagu cusubtahay saaxiib, subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada iyo barnaamijyada ka baxa halkan.